Kani waa Brennan Monorail tareen si weyn uga duwan kuwii hore. Waxaa la sameeyay tareeno hore, balse tani waxay ahayd mid gaar ah. Waxay ahayd fikrad mucjiso ah. Waqti yar kadib, waa la ilaaway. Brennan wuxuu dhisay tareen horaantii qarnigii 20aad si uu u muujiyo tiknoolajiyad cusub. Wuxuu isticmaalay gyroscope si uu iskugu dheelitiro miisaaniyadda tareenka, waxayna ahayd waagaas naqshad caqli badan oo dadka ka yaabisay. Fikraddan waxaa hindisay laba nin oo ku laba qaaradood oo kala duwan. Inkastoo ay kala durugsanaayeen, labadoodu waxay doonayeen hal-abuur cusub, sida laba xiddig oo cirka ka ifaya. Gyroscope muxuu yahay? Gyroscope waa saxan wareegaya oo caawiya xasilloonida waxyaabaha. Wuxuu u dhaqaaqaa si gaar ah si uu uga hortago in shaygu ay isku dheelitirnaan waayo. Sidoo kalena wuxuu iska caabiyaa awoodaha dibadda, ayagoo ku nagaada bar loo yaqaano barta isdheelitirka. Gyroscope-ka waxaa loo adeegsadaa qaababyo kala duwan. Ma aha tareen oo keliya, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cilmiga fiisigiska, injineernimada, iyo sida ay u shaqeeyaan waxyaabaha ku shaqeeya matoorada. Haddii bidix aad ka riixid, isla markiiba wuu ka falceliyaa bareesharkaas oo wuxuu soo aadaa halkii lagu riixay. Caawintaas oo iska caabinaya waxyaabaha waxay saldhig u tahay xasilloonida gyroscope-ka. Mabda'iisu waxay dhaafaan injineernimada, ayagoo gaara falsafadda iyo fiisigiska. Tareenka uu hagayo qalabkani wuxuu ka turjumaa mabaadi' cusub oo u bilow ah sidii ay u shaqayn jireen tareenadii caadiga ahaa ee ku socon jiray labada lugood. Maxaa yeelay tani waxay ahayd tareen hal isticmaala, laakiin xasilloonidiisu waxay ahayd lama filaan. Xitaa marka uusan dhaqaaqayn, wuxuu ku nagaanayaa booskiisa. Tareenku wuxuu awoodaa in uu uga leexdo angalkaas asigoonan dhacaynin. Taasi waxaa suurta ka dhigay laba saxan oo iska soo horjeeda oo labadooda mar walba waxay ku yihiin cagsi, oo ay uga hortagaan in markii uu tareenka leexanayo uusan wadada ka weecan oo wadadiisii haayo. Waxaa cajiib ah in injineeradan ay xaqiijiyeen in tareenku xasilloonidiisa sii haysto xaalad kasta oo ku sugan yahay. Tareenka wuxuu astaan u ahaa hal-abuur, inkastoo ay jirtay miisaaniyad yari. Maxaa yeelay wuxuu beertiisii u beddelay goob tijaabo, oo waxaa laga arkayay beertiisa inay ku ooleen gyroscope-yo kala duwan iyo waddooyin loogu talagalay in tareenku uu maro oo u dhisan qaab xaglo kala duwan ah. Brennan wuxuu soo bandhigay nooc yar oo ka mid ah hal-abuurnimadiisii ciidanka. Aad ayayna ugu farxeen markii uu u sharxay sida ay u shaqaynayso fikraddiisa. Waxay dhaheen, tani waa mid xiiso leh, oo waxay soo jeediyeen in 10,000 oo pound la siiyo si mashruuciisa uu u noqdo mid guuleysta oo shaqayn kara. Laakiin maalmo yar kadib, arrinka maaliyadda dhaqaalaha ayaa diiday. Brennan ma uusan niyad jabin oo wuxuu helay 2,000 oo pound. Lacagtaa markuu helay kadib, Brennan wuxuu sameeyay moodal weyn oo laakiin ka samaysan alwaax. Brennan wuxuu bilaabay inuu dhiso moodalka cusub oo cabirkiisu ahaa 6 mitir oo joog ah, 1.5 oo ballac ah, kaasoo lahaa laba saxan oo gyroscope si ay u dheelitirto xasilloonida tareenka. Wuxuu ku bilaabay tijaabada beertiisa isagoo isticmaalaya tubooyin gaas ka dhammaaday iyo alwaaxii uu ka sameeyay tareenkiisa. Waxayna ahayd sanadkii 1907 xilligii uu sameynayay tijaabadaas. Tijaabadu waxay u muuqatay mid guuleysatay, laakiin ciidanku weli maysan hubin in arrinkan ay noqon karto arrin si dhab ah u dhici karta. Xafiiska Hindiya ee waagaas ayaa bixiyay 6,000 oo pound si ay u caawiyaan horumarinta tareenkan. 5,000 oo dheeri ah ayaa sidoo kale laga helay xarunta Kashmir. Iyadoo lacagtaas la helay, Brennan wuxuu dhisay tareen cusub oo miisaaniyadiisu yahay 40 tan, wuxuuna awoodaa in uu jiido ama uu qaado miisaan 20,000 oo horsepower ah ama 20 gaari-faras. Tareenkan ayaa markiisii ugu horeysay si caadi ah u shaqo bilaabay Oktoobar 15, 1909, isagoo qaadaya 32 qof. Riyadiisu waxay ahayd mid cirka isku shareerta maadaama uu guuleystay. Wuxuuna bilaabay inuu dadweynaha ka dhaadhiciyo sida uu u shaqeeyo tareenkiisa. Dadku waxay la yaabeen sidii uu u awooday inuu ugu socdo hal lug
halka inta badan tareenada ay ku socdaan laba lugood oo bir ka samaysan. Iyo sidoo kale arrintaas su-aasha weyn keenta ayaa ahayd sidii tareenkan uu awooday in uu u leexdo asagoonan dhicin ama aan wadada ka weecan. Inkastoo tareenku si caadi u shaqaynayay, dad badan ayaa weli ka shaki jiray mustaqbalka tareenka. Waxay ka baqayeen in uu mar uun tareenka wadada ka weecan doono oo uu dhici doono. Barnaamij wuxuu aaminsanaa in tareenkiisu uu ku safri karo 120 ilaa 200 oo mayl saacaddii, wuxuuna yidhi waxaan rajaynayaa tareenkan in uu awoodi karo inuu ku safro masaafo ka badan masaafada ay ku safraan tareenada iyadoo leh ammaan iyo xawaare sare. Wuxuuna ka dhigay bulshadii kuwa markii dambe ku qancay in aan loo baahnayn in la dhiso wadooyin badan oo tareenkan wuxuu kaliya adeegsanayaa hal wado. Barnaamij sidoo kale wuxuu fikradiisii ku soo bandhigay London sanadkii 1910 iyadoo qaadaysa 50 rakaab oo ku wareegaya jid wareeg ah oo u samaysan sida goobo, si dadka loogu dhaadhiciyo in tareenkan uu yahay mid aan dhacayn. Arrinta la yaabka leh ayaa ahayd in tareenka duqii magaalada ee waagaa ayaa ahaa mid ka mid ah rakaabkii saarnaa tareenkii ku wareegayay goobada. Barnaamij ma naqan mashruuciisa mid guuleysta, laakiin wuxuu saameyn ku reebay tiknoolajiyadii waagaa jirtay oo ahayd mid aan weli heerkaas gaarsiisnayn. Inkastoo fikradiisu aysan si buuxda u guuleysan, waxay ka tagtay dhaxal weyn. Naqshadda Barnaamij waxay saameyn ku yeelatay meelo badan, waxay dhiirigelisaa jiilasha mustaqbalka inay sii wadaan horumarka maadaama ay fikradiisu aasaasi u ahayd isku dheelitirka awoodda dibadda iyo midda gudaha ee shayada dhaqaaqa.